weekgan wuxuu ahaa week cabsi geliyay dad badan shockna ka dhigay because obviously waad ogtiin ChatGPT waxa loo yaqaan ama telefoonka uu kugu jira waa artificial intelligence haddii aad su'aal weydiiso su'aashaada ayuu ka jawaabayaa balse dad badan ayaa waxa ku dhacday in message loo diray message-yadaasi oo la leeyahay hey baby ma soo kacday iyo maxaan ku yiraahdaa ka waran iskoolkii aad bilowday maanta ama aad aaday dadkii shock ku noqotay markii dadkii ay guda galeen ee fiiriyeenna waxay arkeen in run ahaantii ay tahay artificialki inuu ayaga la hadlay because artificialku in adiga su'aasha weydiisaa suu kaaga jawaabo taas ayaa waxa ku noqotay shock shirkadii markii la weydiiyay oo ChatGPT waxay sheegeen in ay arintaasi sax u dhacday oo artificialki intelligence-ga uu dadka asaga message u diray uuna kow la hadlay balse ma aha wax kas loo sameeyay wax virus oo bug oo shirkadda dhaxgala waay marka run ahaantii artificial intelligence-ga waxyaalo badan oo ma aragtay waxa laga arkaa oo wanaagsan balse waxyaalo badan oo maxaa la yiraahday ii sheegeen cabsi gelinaysa caalamkana way ku jiraan sidoo kale mid labaad oo usbuucan ka dhacday caalamka ayaa waxay noqotay in ay dal kale u adeegsatay aaladihiisa telefoonada u qarxisay